raalna waxaa muhiim ah inaa preparation markaas adiga ku jirto oo diyaarsan tahay markasta intaanan application bilaabin. So tibka ugu muhiimsan taas waaye haddii aa application bilowdo adigoo diyaar u ahayn oo applicationkii markaad bilowdo ama luuqadda hadhow lagu soo weydiiyo ama documents lagu soo weydiiyo lagu dhaho soo dir shuruudihii mid ka mid ah buuxin weydo automatic disqualify noqone qofka kale aa la siinaa oo waiting list ku jiray ama waa laga saaray. Marka scholarship maxay muhiim u tahay dhammaan qarashaadka waxbarashada in la dabaro sidoo kale waxay kuu furaysaa jaamacado caalami ah waxay kordhinay fursadaha shaqo ee mustaqbalka. Fursadaha shaqo mustaqbalka waxaa ka wadnaa ardayga markuu jaamacadda dhameeyo waddan kasta xeer iyo nidaam immigration u degsan uu leeyahay. Ardayga waxaa loo ogolaadaa inuu cilmigii uu bartay uu markaas ku shaqeeyo oo waxaa ka mid ah Jarmalka, UK, wadamo dhan taas way ka siman yihiin oo su-aasha ugu badan soo laalaabata ardayga markaan jaamacadda dhameeyo maxaa xiga. Scholarshipyada marka noocyada iskugu jiraan waxaa ka mid ah fully funded oo scholarshipka markaa xareynayso marka hore iska fiiri ma fully funded miya oo dhammaan kharashaadka jaamacadda hoygaada iyo biil markaas lagu siinaayo qofkaas biil yar lagu siinaayo sidoo kale lagaa dabarayo kharashkii markaas waxbarashada iyo haddii aa u baahato markaas waxyaabaha ardayda PhD-ga markay sameynayaan cilmi baarista kharashka cilmi baarista waa laga sameeyaa waa laga cover gareeyaa. Sidoo kale haddii research baseskaada uu yahay adoo tusaale master ah aad diyaarinaysid aad dhahdo tusaale waxaan researchka kasoo sameynayaa dhaatadii kasoo aruurinaa Muqdisho camal hospitaalada Muqdisho ku yaala markaas kharashkii markaas wax waaye waa laga cover gareynaa. sidoo kale waa partial fund qayb ka mid ah kharashkaas laga bixinaa. It means partial fund marka ka hadlayno kharashkaas qayb ka mid ah ama jaamacadda laga dabaraa ama wax waaye ishaq jaamacadda institution-keeda half ka mid ah laga bixinaya. So mise noloshii adaa isku qabaysid. Waxyaabo kale oo scholarship noocyo kala jira oo la fiiriyo merit base oo ardayga academic profile-kiisa la fiiriyo GPA wax sidiisa hore la fiiriyo waxaas oo dhan la qiimeeyaa. Need base jira oo ardayda qaar la siiyaa oo baahiyaha gaarka qaba. Sidoo kale waxaa jira country based scholarship la dhaho. Please qofkan ma imaqlaay mute kale disruption badan uu sameynayaa. Country based country based jira scholarship hadda tusaale Ireland markay bixinayso waxaa jira scholarship khaas ah ay u siiso East Africa oo Kenya, Soomaaliya, Ethiopia iyo Djibouti. It means waxay ka dhigan tahay dadkaas cida ahayn oo wadamada ka soo jeeda ma ka qayb qaadan karto. Markasta waxa u baahan tahay xogtaan oo dhan ina overview-ga ogaato. Overview-ga marka iska akhriso dhanna u gudubto eligibility marka waxa ka mid ah country based wadamada loogu talagalay scholarship-kan la siinayo. Haddii adiga marka scholarship-kii aad akhriso oo focus-ka badan aad geliso dhanna eligibility-ga markaas aad hadhowda ogaato inaan Soomaaliya ku jirin wadamada loo ogol yahay waa dhibaato weyn waaye. So waxyaabaha ugu muhiimsan marka hore aad check gareynayso waaye. Qodobada ugu muhiimsan ee la qiimeeyo scholarship-ka waxaa ka mid ah GPA. So GPA-ga waa muhiim haddii arday hadda aad tahay jaamacadda dhigta inaad ku sii xisaabtid arrintan. Scholarship-yada badanaa waxay ka sameyn yihiin 3GB inaad haysato ay ka sameyn yihiin. Qaar jaamacadaha average ardayda lagu xisaabiyaa qaarna jaamacadaha GPA waddanka ay ku xisaabiyaan. You have to be GPA waa ka bedeli kartaa average u bedeli kartaa ardayda xisaabta dan la joogta average ma ka bedeli kartaa GPA u bedeli kartaa. Marka caadiyan laakiin luqad dadka ku fahmayaan hadda inuu ugu sheego you have to be in a grade A haysto. Haddii aadan haysan B waa inaad haysataa. Markasta isku day
3 إلا ميراس إنها حيستو هدي 3 above حيستو it's good حتى كسي حسابتا ما دا أرد جامعة دكتا أتا أما last year أكون جرتو إنا يعني جي بي كاس أجارتو صوبتا هلو application لها markay sam noqdaan waxyaabaha lagu kala saaro GP-ga ka mid ah arday waxaa jirta su-aashaas in badan waa soo laalaabatay ardayda ka hooseeya 2.5 ayaga maxaa micnaha ama xareysan karaan ma scholarship haddii 2.5 ama 2 aa haysato waa xareysan kartaa laakiin waxaa u baahan tahay profilekaada inuu xooganaado oo dadka kale applicationka soo xareynaya waa inaa waxaan dheertahay iyo wax kaloo aa kaga duwan tahay waa inaad soo bandhigtaa tusaalaha ku siinaya haddii adoo 2 haysta application xareyso arday kalena oo 3 haysta gp oo asagan xareeyo oo a haysta labadiina applicationka adigana luuqadii aa ka dhisan tahay oo IELTS examkaadii ama wax waa imtixaankan luuqada aa haysto internationalka TOEFL ama IELTS mid ka mid a scoorkaadana uu gaarayo score fiican 6.5 band 7 aa haysato almost adaa priority yeelanaya haddii la fiiriyo marka waxyaabaha applicationkaada kor u soo qaadaya inaad ku dirtaa ardayga wuxuu leeyahay aniga 2.5 haystaa scholarship sax waa xareyn karta scholarshipyada qaar marka la imaanayo scholarshipyada waaweyn waa very competitive marka waa ina applicationkaada iyo profilekaada xoogan yahay marka hore profilekaada dhis waxaa jirta waxa la yidhahda statement of purpose insha allah kadaalak ku sharxi doonaa iyo motivation letterka waxay kula duwan yihiin isaga laakiin statement of purpose ama motivation letter ha noqoto it means waa inaa markaas ugu horeysa adiga naftaada profilekaagii si fiican u soo bandhigi kartaa problem meesha ka jira aad xalinayso future careerkaada markii aad jaamacadda dhamaysa maxaa qabanaysaa waa inaad isku xiri kartaa waxaa baranayso iyo haddaad dhahdo public health officer xareenaya master of public health aad dhahdo statement of purpose kaadana aad ku darto waxaan ka shaqeynayaa markii aan masterta soo dhameeyo yacni managementiga iyo howl aan public dhibaato weyna kuu keenay marka waxaa la arkayaa inaadan waxa waaye yacni yool cadcad inaadan lahayn waxaa ka mid a waxyaabaha kale oo la qiimeeyo CV-ga badanaa Europe markii la xareynayo waxay dalbadaan Europass waa groupka soo dhignaa free waaye qof kastana ha iska diiwaan geliyo كين حسن مرة بمودة وقلنا وقصة بعثة وانا لقى أبو أبوقها يعني كين حسن هدانا مقليس جانس وقدم بيوال لور جرى موت كقولي واسكفوا يسوي لنا بوقها أكتر كيرها بليز مود قال كين حسن هيا برس كسر CV-ga waa muhiim CV-ga nooca gudbinayso inuu markasta muhiim ahaado scholarshipyada waa ku kala duwan yihiin template gaara isticmaalaan hadda Europe template isticmaashaa scholarshipyada Africa template gooni isticmaalaan Turkey template gooni isticmaalaa badanaa scholarshipyada qaar waa ku sheegayaan template-ka ay rabaan iyo nooca ay rabaan dokumentiyada way kula soo wadaagayaan marka waxaa laga rabaa sambalka ay page-ka ku dhigaan inaad ku dhufato qiimeyso kadibna template-kaas mid la mid ah aad soo xareyso laakiin haddaan si gaar u xuso scholarshipyada badanaa nagu badan waxa waaye waa kuwa Europe badanaa waxay kaa rabaan template-ka CV Europasska ay kaa rabaan waa inuuna koobnaadaa oo yacni aad u kooban yahay oo micnaha waxyaabihii muhiimkana uu koofar gareynayo sidoo kalena de sheeko keero oo sheeko micnaha oo dheera inuuna ahayn CV dheero 3 pages 4 pages 5 pages cidna ma akhrinayso marka waxa laga rabaa ninka markuu qiimeynayo inuu saas quick review ku sameeyo kadib pointiga iyo kala dhexbaxo CV-ga marka waxa ugu muhiimsan applicationada qaar marka portalka buuxinayso experience-gaada ku buuxinaya education level-kaada ku buuxinaya xogta xagga gelinaysa iyo xogtan waa inay iswaafaqaan haddii different kala ahaadaan tusaale work experience-ga aad soo gelisay waxaan soo shaqeeyey 2020kii intana aa ku qorto waxaan soo shaqeeyey less than
one year aa ku qortay kugu qorantay CV-gaada waxaa lagu arkayaa qof professional ahayn qof aan diyaarsaneyn marka waxaa laga yaabaa selection committee wax qiimeynaya inuu waqti badanba kugu luminba oo applicationkaada saas meesha looga saaro soobka waxyaabaha statement of purpose aa loo soo gaabiyey waxaa ku sheegaysaa sababta scholarshipkan u dooratay marka scholarship kasta meeluu yacni ka bilaabaa ujeedadiisa iyo wuxuu rabo marka waxaa lagaa rabaa scholarshipka intaad tagto visionka iyo yoolka uu leeyahay iyo wuxuu rabo inuu qabto iyo wuxuu rabo inuu koofar gareeyo inaad si fiican usoo fahanto horta kadibna adigii shakhsiyadaadii profilekaadii iyo qolyahan jaamacadda waxay rabeen ama tiimkan scholarshipka bixinaya inaa ahdaaftii wixii isku xirto ay kaa dhex arkaan haddii scholarshipkan uu xoog saarayo leadership influence ama uu saarayo future health leaders uu kaa rabo inaa xaggaas waa inuu kaa dhex arkaan leadership waa inaa muujisaa oo statement of purpose-kaada aa ku muujisaa laakiin haddaa aad soo qorto ani scholarshipkan waxa u rabaasaan xaalad dhaqaale daraa haysata insecurity ku noolahay intaan ku jiray ma la tixgelinayo dadkaas pointiga qiimeynayaan mar kastana waxay dareensiinaysaa qof diyaarsan inaad tahay marka si fiican usoo fahanto waxay qabtaan waxay qabanayaan waxay rabaan dadka waxay ku dooranayaan waxaasoo dhan soo fahna horta haddii lagu dhaho leadership aa rabnaa hadda tusaale waxaa jira JSK scholarshipkaas hadda wuu furan yahay qofkii ka faa'iidaysanaya insha Allah waa soo dhigaynaa London of School and Hygiene and Tropical Medicine aa bixiya marka waxay xoogga saarayaan future health leaders so marka waxaa lagaa rabaa marka statement of purpose-ka aad qorayso inaad isku xirto oo lagaa dhex arko inaad ka mid noqon karto beri future health leaders sidoo kale background-kaadana waa inuu ku xirnaadaa adoo hadda IT-ya haddii la dhaho jaamacadda waxaa rabnaa future health leaders ma isqaadanayso you have to be marka background-kaada story-kaada waa inay isku xirnaataa wax isku xiran oo qoraalka iyo akhriska wax badan laga dhex fahmi karo waa inay noqotaa sidoo kale waxaa baranaysid iyo yoolkaaga waa inay cad yihiin sidoo kale waxaa ku daraysaa oo ugu muhiimsan markii aad scholarshipkan soo dhammayso adiga waddankaaga markaa ku laabato maxaa yacni ka beddelaysaa maxaa bulshadaada kusoo kordhinaysaa waa inaa muujisaa waa inaa yacni ka hadashaa si fiican waa inaa uga hadashaa sababtoo ah dadkan haddii dhahaan waxaa rabnaa qof yacni ka beddelaya bulshadiisa yacni xagga caafimaadka kor u qaadaya yacni managementiga iyo sidoo kale ama kor u qaadaya cilmi baaristii waddankaas ku liidato waa in halkaas lagaa dhex arkaa marka horaa usoo akhrisay scholarshipkan iyo jaamacaddan wuxuu raadinayo marka waxaa qaban doontid ama bulshadaada waxa u qaban doontid waa inaad isku xirtaa markasta intaasoo isku xiran yihiin ma la rabo inaad dhahdo intaan sameynaya halkaasaan qaban doona it's good waa fiican tahay laakiin markasta si applicationkaada competitive-ka ah dadkaasoo dhan aa ku tartamaya 100 qof 1000 qof aa kula tartamaysa waxa uga doonta waa inay leedahay waa inaa points ka hadashaa sorry CV-ga maxaa ka dhigaya mid xoogan waa inaa waxbarashadaadii si fiican ugu qorto oo cad yihiin school secondarygaagii ilaa magaranaysa jaamacadaada sidoo kalena khibradaadii experiencegaadiina ay ku jirto khibradda markaa qorayso waxaa fiican markasta haddii IT aad tahay xitaa inaa IT experiencegaada la xiriirto haddii aad management iyo business administration aad tahay markasta waxaa fiican background-ka aad tahay inay la xiriirto khibrad laakiin iyaga badanaa ma tixgeliyaan so scholarship-yo qaarna waa tixgeliyaan laakiin markasta waxaa xoog saartaa qolyahan waxay raadinayaan tiimkan waxay fiirinayaan so haddii ku dhahaan waxaa rabnaa 2 sano oo xiriira la leh masterta aad dhiganayso oo tusaale aad waxaad dhigatay IT oo waxaa rabtaa inaad cyber security mastertaada aad ku diyaariso waa inay xiriir la leedahay
labadaas sano waa shuruud meesha taala jaamacadaha qaarna way kusoo muujiyaan badanaana way kusoo muujiyaan sidoo kale waa inaa aa muujiso xirfado kale aad leedahay waa inaad ku muujiso volunteer aad soo samaysay ardayda qodobkan aaday ugu hooseeyaan oo waxaa fiican markasta in intaa xitaa jaamacad aa ku jirto volunteer waa inaad soo samaysay scholarshipkan hadda la shaacin doono oo jifininka uu bixiyo dowladda UK ay bixiso Soomaali siiso yacni waxyaabaha la qiimeeyay ka mid ah xirfadaha qofka leadershipkiisa volunteerka xitaa waxa waaye waa lagu ogolyahay scholarshipyada qaar inaad ku muujiso marka waxaa lagaa rabaa adiga 4 sano hadda wax soo baranaysay ugu yaraan isku day inaad volunteer meel kasii samayso oo experience maaragta ku noqoto scholarshipyada qaar waxay ku dhahayaan at least waxaa rabnaa 2800 saacadood waa inaa adi wax la xiriira I think waxa waaye waa 2 sano at least qaar waxay ku dhahayaan 1 year at least qaar waxay ku dhahayaan 2 year waa inaa leedahay experience marka adigii caqabad waxa isku noqonaysiin marka hadhowdii experience ma lihi marka applicationkaada hore ma u soconayso marka isku day at least xitaa inta haddii wadankii waa ognaanay xaalado shaqo la'aana ka jirta xitaa ugu yaraan volunteer sii samay oo haddii aad nursing tahay hosbitaalada tag volunteer kasii samay haddii aad yacni IT tahay shirkadaha tag volunteer kasii samay way ku anface ayna waa ogahay dhalinyaraa la iska yahay waxa u baahan tahay shaqadii waxaa ku tagto masruufa u baahan tahay laakiin applicationkaada waxay kugu soo kordhinayso ayaa ka weyn oo paymentka keliya xitaa yacni mushaarka waa in salariga aynu ku xisaabtamin mararka qaar volunteerka soo samaysay xitaa waa ku anface internship haddaa soo samaysay kasi fiican khaladaadka ugu weyn oo lagu diido waa soo koobaynaa waxa waaye markaa qorayso soobka bes ma aha motivation letterka iyo essayga markaa qorayso intaba waxay ka sameyn yihiin markaas ardayda inay sameeyaan copy paste oo hadda AI soo baxay wax kasta lagu qoran karo ChatGPT lagu soo qoraa halkaasaa lagu soo diyaarsanaya AI-gaas kadibna waxa waaye jaamacadda markaa u dirto waxa lagu arkayaa adigoo profilekaada si fiican ugu soo sheekeeyay dhahay ahdaafteeda saas waaye bulshadeeda waxaasaa ka bedelaya qof sidaasaa ahay jaamacadda kaga baxay high score ninkii lala cajabsanaa kadibna markii la isku imaado in la akhriyo way qiimeynayaan markii la arko qoraalkaada inuu AI iyo balgaarism yahay waxa waaye automatic scholarshipyada qaar xeer adiga uga yaala waxa waaye horaa lagaa saaraa applicationkaas ma ku jiraysid faceka koowaada lagugu reebaaba adoo meel kale face 2 iyo face 3 la gaarinba halkaasaa applicationkaadi la tuuraya marka waxaa fiican markaa qorayso inaa adiga gacantaada ku qorto xitaa haddaa meel kale kasoo qaadanaysid farsamay wax ku dar aragtidaada ku dar waxa waaye dhis adig haddii aadan awoodin waxa waaye qof kaloo ku helbi karaya raadi haddii taas aaweedo luuqadda iska dhis waa inaa wax qori kartaa writingkaaga waa inuu dhisan yahay waxyaabaha ugu waaweyn oo ay qiimeeyaan taasaa ka mid ah marka writingkaaga waa inuu dhisan yahay soo marka iska ilaali bilgaarism haddaa AI wax ku qori jirtay aad diri jirtay aad is leedahay intee wax lagaa soo diidaa waa bilgaarism wax kale ma ah waa waxa ugu weyn waaye scholarshipyada qaar noticena waa lagu siinaaba waxaa lagu dhahayaa haddaa AI wax ku soo qorto applicationkaada ma tixgelinayno waa digniinaa lagu siinaaba sidoo kale dokumentiyada qaar oo aan dhamaystirnayn tanna waxay la xiriirtaa ardayga inuuna diyaar markaas u ahayn waxaan xasuustaa arday scholarship helay kadibna la yiri aqbalaadaada waxay ku xiran tahay luuqadda waxa keentaa isheeg shahaadadii luuqadda keen shahaadadii luuqadda yacni hadda markii la gelayo imtixaanka IELTS waxaa ogtihiin haddii aad paper testga galayso 14 cisho inuu qaadanayo in jawaabaha lagu diyaariyo lasoo saxo marka waqtigiyaa ka dhacay saasuu ku misgareey sidoo kale waxaa jirta arday sidoo kale full scholarship helay oo la dhahay waxaa keentaa shahaadadii secondaryga waa ognahnay wadankii waxa waaye systemkiisii still waxa waaye waxaa kusoo jirnaa kor inaan usoo socno waxyaabaha qaar oo ardayda xaq u leeyahay ma dhamaystirna
laakiin taas waxaa kaga badbaadi karta excuse ma ku noqonayso inaa mar hore diyaar garowdo. oo hadda waxaa jirta ardayadaas waxaa la dhahaa soo dir shahaadada secondaryga, kadibna shahaadada secondaryga isla markii orday waxaa la siiyey 1 week, wiigii orday si kasta intay samaysa waa soo heli weyday. waxaa la yidhi no, scholarship markuu ma haysto wax ma ku samayn karnaa la dhaha, saasay ku misgaraysa. marka intaana adi taas waxaa uga badbaadaysaa intaana application bilaabinba horta dokumentiyadaada ha kuu dhammaystirnaada, shahaadooyinkaada diyaarso, luuqadda iska sii diyaari, CV-gaada ha kuu diyaarsanaado, everything ha kuugu jiraan waxa waaye telefoonkaaga ama computerkaaga. simple hadhow applicationka markaa buuxinayso waxyaabaha qaar marka laga tago soobka oo aad ka badbedelaysa iyo CV-ga, laakiin baasaboorkaaga iyo dokumentiyada kale hore lay kasoo upload gareyne, way kuu fududaan, howsha kuu yaraanaysa. shahaadada secondaryga hore tii bachularka horaa kasoo gelinay. waxaa ka mid a waxyaabaha keena in khaladaad ku waaweyn inaad mar dambe dirto scholarshipka oo xilli leed aad dirto, iyadana waxay ku jirta waxyaabaha khaladaadka la galo. marka waxaas dhigan scholarshipyada qaar bilay furnaadaan, 2 bilay furnaadaan, soo early xaray. marka bishaas dhan maalin kasta wax ka mid xareyn kartaa oo qaban karta. scholarshipyada qaar 2 bilood furan yihiin, qaar bilay furan yihiin. marka bil waa kaa badan yihiin haddaa maalinta 1 hour siiso. استراتيجية muhiimsan haddii aan dhahno ii tilmaam, soo waxa waa inaad diyaar ahaato. soo scholarshipkaas 6 bilood ka hor ama 12 bilood ka hor, sanad ka hor isdiyaari. hadda sanad cusub aa noo dhashay masha Allah, waxa lagaa rabaa inaad waxa waaye haddii hadda qabyo aad tahay oo dokumentiyada qaar kaa dhiman yihiin, haddii is leedahay luuqadii waxa waaye way kaa dhiman tahay, isdiyaari, isdhis. so waxa lagaa rabaa next applicationada furmaaya adoo diyaarsan inay kuu soo gasho, waxaa fududaanaysa in hore lagaa qaato. sidoo kale codso scholarshipyo badan. inaa horta scholarshipyo badan codsato waxay ku xiran tahay dadka aa ku xiran tahay. sida hadda groupkana waxaa soo dhignaa maalin kasta daily opportunitieska furanaa soo dhignaa, la soco dadka scholarship xareysta, la saaxiib, waxaasoo dhan yacni meelaha looga hadlaayo tag, sida miitinadan camal ka qayb gal, codso scholarshipyo badan. haddii 1 application lagu soo diiday haniyad jabin, dib u fiiri applicationkaada, waxa dhahdaa maxaa kaa khaldanaa, ma luuqadaa lagu haystay, ma qoraalkaa qorta bilgaarism aa ku dhacday, dib u fiiri, mise dokumentiyada qaaraa yacni aan ku dhammaystirnayn. sidoo kale waxaa hubisaa grammarka iyo qaadaadka, tan waxay soo hoosgelaysaa soobka, oo markaa qorayso grammaticalka waa inaa waxa waaye iska adkaysaa, sababtoo ah waxa keenaysaa intaas aad dib u fiiriso. CV-gan haddaad dhahdo luuqadda levelkayga waa C1 ahay, grammarkaagii iyo qoraalkaada marka la fiiriyana la arko in yacni basic grammarkii khaladaad badan uu ka jiro, marka xoogaa ismandhaafay keenaysaa. marka grammarka waxaa samayn kartaa haddii aad gacanta ku qorato, waxaa jira software groupkaa soo dhigi doona insha Allah, aad iskaga hubin karto grammaticalka wixii kaa khaldan oo kuu saxaaya. adiga haddana wixii aad leedahay xuquuq adiga aad leedahay, haddana grammaticalkiina kaa saxaaya. marka khaladaadka waxyaabaha oo ismaandhaafka keena ka mid tahay. scholarship horta haddaa hesho noloshaada masha Allah wax badan uu ka bedelayaa. sidoo kale fursado badan aa kuu furmaaya, laakiin dadka guuleysta dhammaantood waxay ka sameyn yihiin qof diyaarsan leh aa guuleysta. soo adiga haddaa qabyo tahay, idmihiisa waxaa u baahan tahay inaad dib maaragta iskugu laabato, aa is soo dhisto. meesha yacni qof kasta meel xoogaa bini'aadanaa laya ma la dhammaystirna, laakiin dib u qiimey intee la iga haystaa, inta waa xoog ka saar meesha aa xoogaa ku liidato. weaknesska inaa ogaatana waa furaha kuusha waay. haddaadan weaknesskaada aadan qaadan oo mas-uuliyaddaas aadan qaadan, aadan qiimeyn oo aadan fiirin, way adkaanaysaa markaas. waana heli kartaa sanad kasta opportunity-ga definitely waa imaanaysa, maalin kasta fursadaa furan, laakiin muhiimadda waxa waaye inaa adi diyaar tahay. intaasaa kusoo kooba. Mam Yasmiina siin lahaa, slaad yaraa kalaa ku dar lahaa. marka
هذا مقلس مامسين سدوا waa joogaa habaryar muxuu ahaa slidekayga haddaa sheer garayn karta u saar wax yar waa ay wada og yihiin laakiin markasta waa lagu celcelinaa because dadku inay kala daadsan yihiin aan moodaa slidekayga ma aragta aan kuu soo diray شارع أصلا إن شاء الله هاي documentigan haddaa la wadaagi kartid oo muxuu ahaa ugu diri kartid groupka ugu diri habaryar muhanad إن شاء الله هاي ريسورس دم وقدرة meeshan waxaa waaye safaraa la wada galay safarka tartiibaa loo soconayaa qonyar socod waxaa leeyahay qodaxnimo muddo ani qof weyna ahay 20 jir marka layahay qofka energy badanaa ku jiro wax walba inay dhaqso u fududaadaan uu rabaa oo ugu hagaagaan laakiin dulqaada loo baahan yahay markaa weynaatid oo derbi walba aad kasoo go'did ambitionskaaga waas waxay baranaysaa sabarkaa baranaysaa hadda sabar barta idinma dhihi karo because sabarka waqtiga idin bari karo qofka markuu waxyaabo badan oo adduunyada loo baahan yahay oo ilmo aad dhashay ay weliba ku sugayaan aa ugu dhib badan oo mar walba waxaa u baahan tahay aadan adduunyada ka heli karin marka sabarka waxaa lagu bartaa moor aa adiga weynaatid haddeertaan nasiib wanaag waa dad wada socdaan nahay oo wada jira oo maanta garab isu ah waxaan ku soo celinayaa tan oo aa hore u wada ogtihiin scholarship opportunities marka ugu horeysa dadka bajularka iyo masterka doonaya oo naga tirsan waxaan xoogga saaraynaa inaad fiirisaan fursadaha u furan sub-saharan african kuwaas muxuu ahaa waa muhiim mar walba waa nalaga ogolyahay weliba priority waxay siinaya intaasoo number inay qaataan waxaa u baahantihin inaad fahantaan scholarship landscape wax la yidhaahdo oo ciwaanka ah bajularka qofka ah fursadaha u baahan yahay east iyo west marka bariga koonfurta dhinac walba markay ka imaato partial funding ma kuu furan oo qayb maa lacagta lagaa bixinaya qaara ku dhahay nolosha waxbarashadan kaa bixinaya waxbarashada lacagteeda wax yar ma aha 120,000 140,000 waa lacagta scholarshipska lacag fudud ma aha qofka markuu helno inuu ku ciyaaro ma aha wadankeena xataa bes halkaas ku ekay hooyo hoos soo deji wax yar hoos soo deji marka muxuu ahaa wadankeena xataa aniga ilmahayga waxaa la siiyaa loona la siiyaa awal grant la siin jiray wax oo samafal ah oo cunug uu soo celin hadda 120kaas waxay daba soconaysaa 10 sanadood ee daba soconaysaa ama 20 sano ay daba soconaysaa oo uu ku gudaya lacagta saddex saxanka xataa Yurubtan iyo Westernka waa ka dhamaaday marka adoo Afrika jooga fadlan hadda yalsanin hadday ku jiraan gaar ahaan ardayda heshay University of People ardayda kale oo arqadaha ay haystaan oo baasaboorada aan heli karin dhaqaale xumada wadanka jirta waa la socdaa priority waxaa siisaa inta waqti kaaga dhamaan lahaa bilaash haddii aad heli kartid master aad ku qaadato online haddii aad heli kartid bachelor aad ku qaadato online jaamacaddan University of People 30 qofood ay hadda noo qaabishay oo ka cafisay fiiga applicationka aad aan ula yaabay yani ma ayna filin aniga iyo Muhammadba inaan lagu dheelin waaye oo qofkaas qalin jabintiisa uu xoogga saaro waalidkaana 12 sano maadaama culays uu kugu soo waday inaad culays ka dulqaado naftaadana proud ah ku noqoto markaas waxay kuu furaysaa oo hubaala anigana research aan kusoo sameeyey in 2 sano haddaad dhiganaysa jaamacadda University of People online ka dhiganaysa adoo gurigaaga iyo reerkiina la joogo inaad dibad haddii loo soo baxayn dadka ay wada jecel yihiin inaad dibad usoo bixi kartid jaamacadda kale oo kugu xiri lahayd baasboor ma haystaa IELTS ma haystaa Duolingo ma haystaa waxaas waa ka dabaalanay يعني جامعات مريكا أرض الدجنات أو جامعات كذا تعمل هذول جوجو جيسك أفريقيا أمين توبي جوج أمين جيجي جوج أما مقدش أما الجيسة ملا ماشى كجوج سنة يبرد بس هدول قاعدين قفكوا إنه تقول اسمه هذا هالقلادة وحقول بيعكرتها ترانسفير واحد لهذا الصوب سنة جامعات University of People ولا قنصية عندك سنة يبرد يعني كورسات كان قاعدين أنت ربع إنجليز كان ربع سوبرين جالس بدن على هذا وضن كارتيا مركز البنك كان marka goolka ku haya maskaxdiina inta waa ka gudbaa secondary level waxa laga rabaa shahaadada secondary-ga hore waxa uu soo sheegay Muhammad iyo transcript ina suubisid personal statement hore loo soo sheegay 500 ilaa 1000 word waaye lama badiyo reference letter waxa soo sheegay Muhammad hoos u sii soco Muhammad English language-ka muxuu ahaa iyadana Cambridge haday idin fududahay suubiya Ingiriiska idinku anfacaya
cunuga wuxuu ku leeyahay anigu waxaan rabaa inaan noqdo petroleum engineer inspiring way arday badan oo hadda petroleum engineer waddanka maadaama petrol laga helo oo saa gaali isugu kala dilayso waxa waaye petroleum engineer arday inaan helno way fiican tahay laakiin petroleum engineer markaad noqonaysid muxuu ahaa oo dalka ay imaadaan ajaanib maxaa kula shaqaynaysaa haddii rabto ciriiriga afrika inaad ka baxdidna oo adduunyada qatar ka shaqayso abudabi ka shaqayso ama dhulkan gaalada ka shaqayso dhulka gaalada meel raaxale maa shaqadeeda xitaa noloshaadii canshuurtooda basaa loo shaqeeyaa laakiin qofka successful wuxuu noqdaa awowayaashan iyo aabayaashan carabay ka shaqaysan jiraan oo nolol dal islaan ah oo qabow oo wax walba yaalaan inaad shaqaystaa haddaa rabto luuqadee dadka kula shaqaysanay luuqadda haddaa maanta adoo 20 jir u dulqaaday inaad sanad ama 2 sano xataa kugu qaadato waxaa la qiyaasa 6 bilood in luuqadda lagu barto 6 bilood haddaa u dulqaadan weyso war sanad ama 2 sano ha kugu qaadato tiktokan ba lacag waa u heshiin baraafiska kugu dhawaa gelaysaa youtubea jiro macalimiinaa jirto oo live 3 jeer soo gasho macalin amerikaana oo tiktok ku jiraa jiro bbc english for beginners waxa la dhahaa ayaa jiro dhagahaagaa gashanay dantaada focus garaynaysaa saaxiib wax ma taro aniga hadda guriga meel cidlaan deganaa soomaali iima dhowo ilmahayga waxaan u sheegaa maalin kasta inuu saaxiib waxba kuu tarin saaxiibada badanaa telefoon kuugu jiro oo mar kasta programmidka ah oo intaa aadina ku dhahan waqtigaaga kaa luminayaan hooya ahay aniga dhalinyaro waa soo ahaa talada waa waalidnimo iga qaata noloshaada focus garee adiga dhan waxaa kugu filan 3 sano ciriiriga ah ka baxay ingiriiskan idin leeyahay bartana walaa idinku idin anfacaya shahaado kasta iyo horumar kasta waxa waaye waa aragtay dadka xataa afrika joogo tuulo oo baadiya qofkii jooga hay-adaa tegayso qofkii 2 kelmad yaqaanaa shaqo ka helaya $200 $300 la siinaa qof tuulo joogo oo weligiis aan $5 helin marka luuqadda idinka idin anfacaysaa hoos u dekamaraysa marka iska saara xoog waana idiin sheegay academic eligibility waxaa idiin soo sharaxay muhanada idiin soo sharaxay galeedyada idinka rabo arday badan oo degdegaysa arkoo dugsi sare weli aan dhammayn oo sanadka dambe aan dhammayna ay dhahayso ama bajular ku jirto oo dhahaysa sanadaa ii dhiman gareydkaaga xoogga saar ardaygu ka kale barsan yahay inay quality fiican leen waa la ogahay waxbarashada laakiin maanta adduunyada waxaa joogtaan cashar walbo adduunyada ka jiro inaa ingiriiska curriculumkiisa la jaan qaadi kartid wax kasta fiyaar fingertiibsa yaalaan youtube-kay ku jiraan laakiin waxaa waaye wax qofka indhe xiray luuqadii la-aanteed luuqadda haddaa iska jebisaan oo baariyar idinku ah culays badan ay idinku haysaa adduunyada meel walba wax ka baran kartaa intaas intaan kaga gudbayaa badanaa waxaa soo sharaxay muhanad documentigan ingiriisi ku qoreen naftirkiina waa inaad is encourage garaysaan waa idinla wadaagaa documentigan hore usoo sheegay gradeska lagaa rabo research experience waa la idiin soo sheegay garabkaa la iska taagan yahay arday badan oo maskax fiicana ku jirta meeshan shabakada waa la sheegay birth certificate validka marka haddaa online ku dhigan karta sabar yeelo online ku dhigo haddii aad dugsi sare ka soo baxdo oo weli indhe xiran tahay university of people aa la helay oo luuqadda ingiriiska american natives ay ku barayaan yaaba heli karaba taas muxuu ahaa ardayda haddeertaan computer science-ka qaadanayso oo galay jaamacaddaas university of people luuqadan waa la baroyaa luuqaddu hal sano dhiganaa ama isagoo dhiganaa hadba saa focus u saartid waa marka jaamacadaha sidoo kale iska gal haddaa bajular tahay oo baasaboor keliya maanta $200 xalqaad kugu haysana ayada xitaa online waa la helayaa jaamacado fiicana la helaa markaas caqabad badan oo shuruudo lagu xiraa oo lagu arkaa cunug soomaaliya joogo oo 30 sano cariiriya na saaran waxaan la saaran ma naqaano dalka waa aragtaa dhibaatada ka taagan cayaar ma aha mar walba researchada waxaa lagu soo qoraa in boqolkiiba 75% boqolkiiba 75 inay soomaalida yihiin dalalka ugu muhiimsan oo dhalinyaro u badan wadamadaana joogno waa yeelka ku badan marka dhalinyaro wadan ku badan hadday dadkiisa aqoon wada yeeshaan adduunyada qabsan karaan sidaasna culays badan aan noo saaran wax research galay wax baaray ma laha waxay dunida annaga culayska noo saartay marka inaa feejignaataan la rabaa wadanka macdanaha ku jirtaa la leeyahay nimcaa taalaa leeyahay nimcada idinkaa iskale annaga waqtigu ilaahay na gaarsiiyaa laga yaabaa bank statement muhanadaa ku dari doono badanaa dadkaa lagu xiraa iyadana xalay u baahanta bank statementiga sida looga dabaalan karo intaasaan kusoo gabagabaynayaa waxaan ku wareejinayaa muhanad ardayda kale waxay u baahan yihiin habar yar iska bixi markaas sharing shaashadee waa la arka samax
شاشة ولا أركا صح؟ ها والله أركان ها هذا أوكي. soo dhawaada maanta dhan haddaan theory ka sheekeyno waxaa laga yaabaa wax badan inaad miskarayso. Marka ardayda qaar waxay ka cawdaan qaabka applicationka loo buuxinayo. Horta problemkan haysta taas waxaa ka muhiimsan inaad waxa waay diyaarsan tahay, inaad shuruudihii akhrin karto, inaad fahmi karto. Waxaa samayn kartaa hadda application aad buuxinayso inaad markaas youtube-ka aadi karto, scholarship-ka magaciisa ku qor, kumanaan qof kale oo buuxinaya aa jirta, markaas waa buuxin kartaa. Haddii aan dhahno yacni hal scholarship caawa sharxayna qaabka loo xareeyo, soo boqolaal scholarship aa jira oo arday kasta wuxuu rabaa midkiisa in la tuso. Marka xoogaa taas suuragal waa noqon weyda, laakiin overview guud aa ina siinaya sida yacni waxyaabaha ugu muhiimsan. Applicationada portalka hadda marka wadamada xareynayso Turkey oo hadda furan, marka xareynayso wadamada Yurub, UK, Chinaha, waxaas marka applicationadooda xareynayso waa different waay, portaladooda isku mid ma aha. Talyaaniga camal hadda hadday arday Talyaani xarey nagu jiraan, so waa arkaysaan different waay. Jaamacadaha UK marka waa different waay, isku mid ma aha. Marka inay gacantaada la qabsato waa damo aad application xareyso waay, ha cabsan, isku day. Tilmaamta AI yaa jira, tag tilmaam see u xareeya, YouTube ku qor. Damo adiga 2 weeks, at least 2 weeks adiga ama bishaas aa xareyso waa la qabsanay applicationada inaa xareyn karto. Marka try garee, laakiin waxa ka muhiimsan aan kuu sheegaa. Inta scholarship-kan sorry waa soo share gareynay groupka. Waxaan rajeynayaa intiina inaa xareyseen oo arday noo xareeyana rajeynaya waa Faransa. Sanad kastana waa furmaa, hadduu sanadkan ku dhaafay sanadka dambe ku xisaabtan waa ardayda masterta. Marka muhiimadda aan hadda usoo qaato waxa waaye applicationkiisa kuleys waaye, laakiin waxaan rabaa technique qaabka adeegsanayso aad rabto inaad u qiimeyso scholarship kasta aad xareynayso. Scholarshipkan hadda haddaan aragno 3 qayb leeyahay. qayb waxaa kaga qoran resultiga xilliga la shaacinayo, qayb selectionka waxyaabaha qofka ku dooranayaan, iyo applicationka yacni qaabka loo buuxinayo. Marka intaas aa arkayso qaybtan waa su'aalihii eligibility. Marka haddaa scholarship pagekiisa aad tagtaba waxaa hubisaa applicationka qaabka loo buuxinayo, selectionka dadka maxay ku dooranayaan, resultiga goormaa la shaacinaa, sidoo kale eligibility-ga ugu muhiimsan. Marka hore tan fiiri, eligibility-gaas aan ku dhufano. Eligibility-gaas mujeeda inta ku qoran kriteeriyada ardayda. So intaas mid ka mid ah waa inaadan yacni misgareen oo magaranaysaa aadan yacni aadan kafina ka wadaa. Oo tusaale waxaa ka mid ah scholarship-kan waxyaaba codsanaya waxaa ka mid ah inaadan yacni aadan horey jaamacadda France ka mid ah ama mid gaar ha noqoto ama mid kale ha noqoto inaadan ka bixin oo aadan dhigan oo aadan haysan sidoo kale institution ku yaala France inaadan ka bixin oo wax aadan ka baran. Marka waxaana muhiima sidoo kale tan inuu related leeyahay waxa codsanayso waa in eligibility-ga saas u akhrisaa oo magaranaysaa aad fiirin kartaa. Hadda scholarship-ka badanaa jaamacadaha France M1 iyo M2 ay mastertood u kala qaadaan. Marka waxa fiican hadda fiiri marka master M1-ka xareynayso wixii lagaa rabo inta ku qoran, sidoo kale M2-ka marka xareynayso yacni waa ku cad yahay meeshaan. Marka markasta eligibility haddaanan fahmin qaad maanta aqoonti meel kasta taalaa. AI-ga isticmaal, AI-ga waa dhiirigelinaynaa qaab faa'iido leh inaad u isticmaasho oo ka faa'iidaysato, laakiin inaad copy paste samayso ma dhiirigelinayno. Laakiin markaan camal application marka saa u fahmi weydo qaad maxaa laga wadaa dheh oo kuu sharxaa shuruudana lagaa rabaa, qaabkaa u isticmaal, qaab faa'iido leh u isticmaal, laakiin ha copy gareynin. Intaas hadaa ka gudubno qaybta ugu muhiimsan scholarship marka fiirinayso waa selectionka. Selectionka markaad tagto maxaa lagaa rabaa meesha maxaa ku cad CV 1 page, adina waxaa gudbisay 2 page ama 3 page.
shuruuddaas waa miskareys waana grade-ka lagu siinayo hadhow application-kaada markii la qiimeynayana waana kaa go'anta marka iska fiiri sidoo kale waxaa lagu weydiiyey cover letter keliya ma lagu weydiine waxaa lagu weydiiyey 1 page hal page soo qoraali adiga career goalskaada kasoo hadal sidee yacni master programkan aad kaaga caawinaysaa inaad ahdaaf badan xaqiijiso sidoo kale motivationka u hayso inaad yacni aad kusoo biirto jaamacadda University Paris City marka intaas 3 qodob meesha lagu sheegay career goalska sidoo kale master programkan aad baran doonto sidee kaaga caawinaya inaad gaarto future careerskaada aad yooliskaada ku degsan sidee kaaga caawinaya waa inaad ogta sidoo kale sababta aad u rabto inaad ugu biirto jaamacaddan waxaa la dhahaa University Paris City la dhahaa waa ku qori kartiin intaas hadda meesha lagu sheegay waa inay application-kaada ka muuqataa cover letter-ka haddii aad adig iska hadasho laakiin bontiyadan aan muujin jaamacadda kaa dalbatay waa miskareys sidoo kale 1 page 2 page ha qorin 3 page ha qorin sidoo kale scholarship-yada qaar waxaa ku arkay inay ku dhahaan yacni intaasoo waad aa rabnaa 500 waad 250 waad intay rabaan adiga scholarship kasta wuxuu rabo lee ku muuji hadduu ku dhaho 500 aa rabaa 500 u qor leh 600 ma ka dhigi kartid hadduu ku dhaho 1 page aa rabaa 1 page lee ka dhig hadduu ku dhaho 2 page aa rabaa 2 page ka dhig waa inaa mid kasta saas shuruudiisa u apply garaysaa sidoo kale reference letterka waxaa kasoo qoran kartaa jaamacadda 2 macalin jaamacadda ka tirsan oo isku fiican tihiin haddii email loo soo dirana ka jawaabaya aa la rabaa haddii yacni macalin connectionkiina halkaas khalad badanaa ka dhashay aa arkay haddii macalin connectionkiisi aan fiicnayn oo yacni connection fiican inaga dhexaynin ama isheeg macalin busy ah aad dhahdo reference letter ii qor oo emailkiisi meesha ku qoran yahay kadib hadhow markii loo dirana ka jawaabi waayo scholarshipkaas waa miskareene absolute waa miskareene hadduu kasoo jawaabi waayo marka waa inaad ku xisaabtantaa qofka yacni reference letter kusoo qoraayo waa inaad isku fiican tihiin qofa isku hubto macalin xiriir fiican kaala dhexeeya waa inuu noqdaa waa in yacni aad la hadli karta aad dhihi karta maxaa email kuusoo dhacay emailada qaar waa loo diraayo waa lagu sheegaa oo portalka ka arkay qofkan inuu soo submit gareeyay warqadii reference letterka marka taas aad ha looga fawjignaado waana sababaha ugu mid oo applicationada loo miskareeyo waayo oo loo waayo ay ka jirta haddii laga soo jawaabi waayo reference letterka marka reference letterka 2 qaaba lagu weydiin karaa markii aad gasho application-ka waxaa lagu dhihi karaa email-ka geli kadibna qofka magaciisa geli kadibna numberkiisa geli email-kaas waxa waaye waa loo dirayaa send yaa dhehe ama iyagaa u diraya automatic kadib ustaadkaas ama macalinkaas waxaa u dhacaya email-kaas waa inuu kasoo jawaabaa waxa badanaa la weydiiyaa reference letterka dabeecadahaada markii aad jaamacadda baranaysa akhlaaqdaada see ahayd class participationkaada sidee ahaa dabeecadaada qof arday active ma ahayd waxaasoo dhan feedback fiican waa inuu kaa bixiyaa aad ku xisaabtamtaa sidoo kale waxaa ka qoran kartaa reference letterkaas shaqooyinka oo mid ka mid a labada mid reference letterka mid waa ka dhigan kartaa mid academic iyo mid waxa waaye job experience waa ka dhigan kartaa waa samayn kartaa qaabka kale lagu weydiin karo waxaa ka mid a I wish fiicnaan lahayd inaa imidso in lasoo qoro oo ma garanaysaa jaamacadda kuu soo qorto reference letterkaas waxaa ku taala stambiga jaamacadda waa inay stamb leedahay waa in emailka macalinkaas uu ku qoran yahay in yacni contactigiisa ka wadaa nambarkiisa hadduu sii raacsan yahay okay waaye sidoo kale warqadda korkeeda waa in loogadii jaamacadda ka muuqataa hoosna waxa waaye shaabadii looga dhuftaa warqaddaas marka waa kuu shaqeynaya laakiin haddii warqad bilaa shaabada aad soo qaadato ama shaqo ha noqoto ama mid jaamacadeed ha noqoto waxa waaye shuruuddaas ma buuxinayso badanaana waxaa kula talinayaa scholarshipyada qaar maadaama kala duwan yihiin way sheegayaan nooca recommendation letterka ay rabaan qaaraa waxay ku leeyihiin anaga maba aqbalnaba personal email qof wata way kuu sheegayaan
so waxa u baahan tahay jaamacadda emailkeeda markaas camal qaarna waa aqbalaan markasta adi shuruud iska akhri laakiin warqadda recommendation letterka aad soo akhrinayso tan ugu muhiimsan waxa waaye inaad hubiso inay kuu shaabadaysan tahay jaamacaddii yacni loogadeedii everything xogtii dhan ay ka muuqdaan sidoo kale transcriptiga iyo shahaadadaadii bajularka aa meeshan ku qoran meeshan ardayda masterta laga wadaa maadaama scholarshipka master yahay haddii bajularka uu yahana badanaa research ma laga soo dalbado sababta iyaga hadda jaamacadda bilaabayaan laakiin waxaan u malayn doonaa meeshan arday master inuu badan yihiin marka saa u aragto waxaa lagu dhahay research topic-kaaga marka aad masterta dhammaynayso aad cilmi baaris ka samayn doonto nala wadaag aa lagu leeyahay marka waa inaad soo koobtaa 3 ilaa 4 pages waa inaad kusoo koobtaa scholarshipyada qaar waxay ku weydiin karaan research proposal oo research proposal waxaa ka wadnaa 3 chapter researchka ugu horeeya yacni chapter 1 chapter 2 iyo chapter 3 oo referencegiina la raaciyey ay ku dhahayaan soo dir laakiin kuwan waa ka duwan yihiin hadda fiiri waxaa lagu dhahay 3 ilaa 4 pages aa lagu yidhi soo dir aa lagu dhahay waxaa lagaa rabaa research topicaadii dhan daatada si u analyse gareynaya problem statementkaada waa maxay waxa waaye researchkaada muxuu muhiimad u leeyahay meesha aad deegaanka ama magaalada aad joogto yacni researchkaaga badanaa research topicaada waa inuu noqdaa research topic oo kadmi kara oo waxa waaye waa inaad buuxin kartaa cap waa inaad buuxin kartaa oo yacni haddaad baarto ka waran aad dhahdo waxa cilmi baaris ka sameynayaa mawduuc hore cilmi baarisyo looga sameeyey already oo yacni xogtiisii meel kasta taalo oo problem hore loo xaliyey haddaad dhahdo waa ka sameynaa ka waran waa dhibaato waaye sidoo kale waa in realistic waa inuu yahay tusaale hadda mastertan waa 1 year waaye 4 bilood uu reey ardaygu wuxuu qaadanayaa casharaanta laakiin inta dambe wuxuu haystaa dhowr bilood la haystaa uu kusoo sameeyay researchkiisa kusoo kufr gareeyo uu ku daafacdo thesiskiisa marka haddii aad soo qaadato ka waran research topic aan achievable ahaynba aan la gaari karayninba marka waxa lagu arkayaa qof aanan dhisnayn marka badanaa waxaa muhiimsan anaga badanaa waxaan malaynaa qofka hadda nugu jira inuu master raadinayo waa in research topicaada hadda kuu diyaarsan yahay hadda ka hor waxaa igu dhacday aniga interview aa laigu yeeray laakiin already aniga research proposalkayga iyo waa diyaarsanaa marka interviewgii aan jaamacad jarmal ku taala ahayd laisoo fariisiyey already waxaa la iweydiiyey wax kale maba lila aadinba maxaa baaraysaa naga dhaadhici baa problemkaada maxaa baaraysaa problemka baarista wuxuu yahay researchkaada noo sheeg ardaygii marka diyaarsaneen oo researchkiisa ka warhaynin indhaha gebgeb aad dhehe markaas waxaa lagu arkayaa yani inaadan yani xooganeyn saasaa waxa waaye lagugu soo diidaa isla markii maanta camal markii interview igu qaaday caawa camal aqbalaad waa isoo darta marka waa inaad diyaarsanta waxyaabaha lagu weydiin doono tanaa ka mid ah haddaan hadda arday master taa xareynaysid aadan ka warhaynin nooca researchkaaga waxa waaye runtii waa dhibaato weyn waaye hadda dib ugu laabo already mawduucan ka baari doonta research proposalkaada diyaarso ha kuu diyaarsanaado computerkaaga ha kuugu jiro maalintii lagu weydiiyo interviewka ku dhahdo jaamacadda haye scan waa inaad ka jawaabi kartaa mawduuca baaraysa waa maxay daatada adeegsanaysa noocee adeegsanay qualitative method ma isticmaalaya maya okay data analysis maxaa ku sameynaysa waa inaad ka jawaabi kartaa problemka xalinayso muxuu yahay waa inaad dhigi kartaa problemkaas xalinaya muhiimaddu leeyahay waa maxay problemkaas gaabkaasaa banaan oo hore loogu gaabiyey oo ayna jirin cilmi baasi hore u koofar gareeyey waa inaad ka jawaabi kartaa halkaas ugu gudbayaa wixii kale insha Allah xog dheeriga raadi laakiin waa inaa haddaad dhahdo research topic maba aqaanoba mararka qaar waxaa lagu weydiinayaa waxaa rabaa inaan ku daro mararka qaar waxaa lagu weydiinayaa jaamacaddaadii bajularka maxaa kusoo samaysay researchka yani aad soo samaysay muxuu ahaa cilmi baarista aad soo samaysay maxaa isticmaashay marka haddaad dhahdo ma xasuusto waa dhibaato weyn waaye taasna iska diyaari waa inaa ogtahay cilmi baarista wax soo samaysay badanaa waa la qoraa ardayda way qoraan oo bajularka waxa laga yaabaa inay googleka iska soo qaadaan kusoo bestigareeyaan markii jaamacadda aad daafacanaysa thesiska
aadan lagu adkeena dhici karta aad saas kusoo gudubtid laakiin hadhow waa lagu weydiinaa ninka professor aniga hadda ninka i wareysanaya professor u ahaa xitaa qof aad wax yar u jaamaleyn karta ma aha meel kastuu kula gelaya marka mar kasta waa sababta u leenahay waa inaa diyaarsan tahay haddaad diyaarsan tahay fursadda waa imaanaya waa ka faa'iidaysanaya sidoo kale haddii ay jiraan internship report haddaa horey internship hore usoo qaadatay iskuid yacni meeshaan waxaa kaaga muuqda masti ma aha marka ardayga wax laga yaabaa inuu dha meeshaan waxa laga rabo masti ma aha okay so wuxuu dhahayaa okay ma gudbinaayo waad iskuid ma gudbin kartid masti ma waa sax waaye laakiin haddii aad gudbiso ogow ardayga gudbiyey adiga priority lahaanaysid haddaa tusaale lagu dhahay internship aa hore usoo samaysay gudbi waa inaad gudbin kartaa haddii lagu dhahay ma jiraan cilmi baaris aa publish garaysay yes haddaa dhahdo waa publish garay waa la wadaagi kartaa linkii iyo meesha ku publish garaysay waxay ku siinaysaa ma garanaysaa opportunity sababta ah scholarshipka marka fiirno yoolkiis waxaa ka mid ah in waxay rabaan dadkan hadda scholarshipka siinayaan in mustaqbalka future dadka cilmi baaris inay ka soo saaraan ardayda hadda qaadanaysa dad cilmi baaris loo tababarayo oo PhD good u qaadanayaan ay rabaan so marka waxa laga qiimeynaya waa maxay haddaa dhahdo yes cilmi baarisaa sameeyey ama research proposalkayga waa diyaarsan yahay marka interview laga qaado ama aad gudbiso wax lagu arkaya arday dhisana lagu arkaya okay so marka scholarshipkan saasa u qiimeynaya wax waaye ma garanaysaa wax lagu dooranayo eligibility-ga aa ugu muhiimsan waa ku dheeraanay resultiga badanaa waxaa la sameeyaa May 26 scholarshipyada qaar waxaa ku dhacda markii email inta lagu soo diro scholarshipka lagu soo aqbalo waxaa kugu dhici karta wax lagu leeyahay week ah haysta inaad kaga soo jawaabto fariintaas ama 2 weeks ah haysta ardayga xasuustaata kor waxaa ku dhacday saas camal so scholarship xilli aqbalayaba waaba la dhaafaba so haddaa accept gareyn weydo qof kale ku xiga waiting list ku jira loo diraya kaasaa booskaas lagu buuxinaa marka tan waxaa ku talinayaa groupka waxaa soo dhigayaa excel aan diyaariyey oo tracking aad ku samayn karto scholarshipka xilliga kusoo jawaabayo nooca scholarshipyada ah xareysay ay ku list garaysan yihiin noidka u baahantay inaad ku darto waxyaabaha aad gudbisay iyo waxyaabaha weli aanan gudbin sidoo kale xilliga aad rajeynayso oo in lagu soo jawaabo hadda maxaa lagu dhahay sorry early April aa la dhahay fariinta kusoo dhacaysa okay wuxuu kugu jira exit trackingka haddii ka waran scholarship aa xareysay aadan ka warheeninba oo email kusoo dhaco lagu dhaco caawa interview soo fadhiiso ama beri interview soo fadhiiso aad waxaa xareysay iyo documenti aad gudbisay aadan aqooninba aadan xasuusanba ka waran CV-ga aad isticmaasha aadan xasuusan purpose of statement-ki sobki aad qortay aadan xasuusan motivation letter-ki aadan xasuusan tusaale inta waxaa gudbisay one cover oo magaranaysaa cover letter aad gudbisay cover letter-ka waa maalintaas aad gudbisay oo dhowr bilood ka hor haddii aadan xasuusan ka waran wixii aad kaga hadashay waa dhibaato oo hadhow interview marka lasoo horfariisay lagu dhaho ka jawaab wixii aad qortay sababtaa sax waa ku aragnay qoraalkaa waana qanciyey faceka koowaad waa kasoo gudubtay laakiin waxaan rabnaa interviewka it means waa maxay adiga shahaadooyinkaa soo gudbisay iyo profilekaaga iyo wixii aad soo qorto horta misleedihiin saas waa interviewka in horta lagu ogaado waayo marka wixii aad qortay haddaan xasuusanba ka waranba oo hadalkii aad ku qortay motivation letterkaagi ama cover letterkaagi iyo adiga aad iskhilaaftaan ka waran waa dhibaatada ugu weyn waaye haddii aad ismaskaraysana taasna khilaafkaas uu kugu dhacana scholarshipkaas wax waa isla markiiba waa I'm sure waxa lagu soo diraa waa lagu diidaa marka organize aho markasta scholarship lagu soo jawaabayo dokumentiyadiisa folder gooniya ku shubo insha Allah kaasna waa soo diraya listiga kuugu jira xilliga aad rajeynaysa inaad isheeg aad garanaysa aad gudbisay xilliga aad rajeynaysa xilliga lagu soo jawaabay wixii dhan waa kugu qoran yihiin marka tracking uu ku sameynaa subax kasta waa booqanay maxaa scholarship ii haray yes kan ma buuxiyey maxaa ii dhiman weli pending ku jira okay kan kale maxaa iga dhiman documentkaas iga dhiman noodku kugu qoran yahay maalin kasta saas uga shaqeynay marka wax kastoo lagu dadaalo waa la helaa ilaahayna ma dayaco qof kastoo dadaalkiisa qof ilaahay dadaalkiisa dayacayo ma jirto se ilaahay tala saaro dadaalaa lagu yiri in allah laa yuqayir xataa yuqayir maa bianfusihim
haddii adiga aadan change-ga sameynin oo caawa aadan dhaqaaqin marka shirkan ka baxno wixii inta aan kusoo sheegnay haddaanan sameynin oo aadan raacin oo adiga isbedelka kaa imaanin anaga waxa waaye dee dhammaanteen yes ma sameyn karno laakiin waa inuu haddii isbedelka kaa imaada waa inaa adi dhaqaaqda waa inay fursadda meesha ka jirta adi aada kadib guusha waa imaanaysa laakiin haddaan dhaho ani scholarship baa rabaa yes laakiin ma diyaarsani idmiis waxay ka dhigan tahay waxa waaye ma dhaqaaqi karo marka waa inaa anaga isbedelka nafahnu ka bilaabanaya insha allah ilaahina ma dayacayo dadaalkeena laakiin waa inaa diyaar ahaato sanad kasta waddanaan bixin scholarship ma jiro hadda waa ogtihiin tahriibka aad u batay laakiin waxaa ogaataan inay kan futureka ka future wanaagsan tahay maanta haddaa tahriibto tagto qaxootiga kale waxbarashada dhan ma jirto waxaa qaxooti aad u adagta inaad dhahdo mastera ka soo baxa ama bachelor ka soo baxa dagaal iyana waa ka soo carrami iskeenayso marka waxay noqonaya in hadda ku noloshii aad survive garowdo hoos ka soo bilowdo laakiin ma heshay hal fursadaa heshay marka hal sano aad isdiyaariso iyo yacni 5 sano kastana aad fursad maalin kasta wax application tirto adoo diyaarsan waxaa ka wanaagsan hal sano keliya oo aad luuqadaada dhisto applicationadaada aad adkayso adoo diyaarsan scholarship next year furmaya aad markaas xareyso horaa ka helaysaa marka waxaan anaga ugu badan diyaar garow la'aantaan ugu badan laakiin waxaa ogaataan tanaa ka fursad fiican inta tahriib leed meel xun ka dhici leed 15 laga bixin lahaa tan maalinta ka baxdo waxaa lagu ogol yahay inaa yacni wadankii ka shaqeyn karto 2 sano 2 sano haddaa kasii shaqeyso waxaa lagu ogol yahay waxaa qaadan kartaa hadda waxaa jirta wadamada qaar wadan kasta wuxuu leeyahay barnaamij xirfadeed uu leeyahay oo aad geli karto oo tusaale hadda aan usoo qaado post study la dhahaa visa kaasaa lagu siinaa 2 sano shaqeynaya 2 sano haddaa shaqeyso adaa wax barata adaa lagu baahan yahay meel kale ma u socotid tanna waxay after 5 years adoo aqoontaadii iyo aadan ka tegin iyo xirfadaadii adoo dhisan oo profileka lagu baahan oo wax bartay automatic waxa waaye wadanka sharcigiisa asaa ku siinaya qofka wax barta hadda loo baahan marka waa ognahay maanta qaxootigii meel kasta waa laga nacay ani marka waxaan ugu badan marka ajaanibta gurubyada la fulno waxaan la dhahaa idinka Soomaaliyeed aad tahriib leen lagu yaqaana iyo qaxooti marka waxaan rabnaa inaan tusno inaan xaggan waxbarashada iyo fursadahan ku fiicannahay waa run taas haddii la fiiriyo waa xaqiiq jirta wiilka Kenyaanka ah iyo gabadha Kenyaanka ah ama wiilka Etoobiyaanka dhammaantood fursadahan waxbarashada ku baxaan waxbay bartaan hadda waxaad arkaysaa qofkaas waddanka citizen ka noqdo marka wax barta asagaa loo baahan yahay sababta meel kalma u soo socdo marka haddaan wax raadinayno wadda saxan waa inaan ku raadinaa taasaan waa dhiirigelin dheeriya insha allah marka aadaa u mahadsantihiin waa ku dheeraanay 2 saac wax ka badanaa ku jirnaa u maleynayaa marka intaasoo kusoo koobaya kulmo kaloo saanoo badanna waa rajeynaya insha allah inaan iskugu imaano maam Yasmin aad u mahadsan tahay oo wax waaye ilaa I think wax waaye sanad ka badan saan le ardayda usoo karib taagneed dadaalkeeda juhdigeeda aad u adagta qof waliba qurbo joogo xilligaas arkayno inuu kuu soo fariisto kuu sharxo wax islaad kuu soo diyaariyo runtii waa dhif iyo naadir aan u duceyno dhammaanteen waxaan rajeynaynaa insha allah inaan wada guuleysano oo isbedelka dhammaanteen uu wada noqdo maam Yasmin iyo Muhammad kaliya wax ma sameyn karaan iyo inta guriga dhammaanteen madaxda ka ah hal qof yes isbedel waa keeni karnaa laakiin haddii aan wada dadaalno waaye هذا وما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله سو دhowaada kulley ba guul aan wada soconaa maantana waa ogtiin dadka dhalinyarada qof qurbo jooga qof dowlad madax ka ah ama nin ganacsada arxan uma hayo qurbahan intan wax nafla laguma hayo waa aragteen dadka ugu saaqidsan oo ilaa heer ay soo qaawiyaan ama muxuu dalka ay ololo ka sameeyaan dagaal oo social media ku jira qurbay joogaan ma shaqaystaan dadkaas qof qurbo joogo fursad uma helo inuu meel intuu soo fariis nacnacliyo qof kastoo soo galo oo youtuber ah waa aragteen losers waay xataa jaamacada meeshan kama galaan warshadaa gelaysaa dooro xun maqaarkeeda wallaahi qol barafaa ka dhex shaqaynaysaa markaa ku dhibaatooto 12 sac ku maqnaatidna gabadha guuri ku carara wiilkana guuri ku carara markaa ku carartay qurbahan joogtidna ilmaa imaanaa ilmo markaa yimaadaan kabaha gashto sideedoo kale ilaa 40 jir saana u soconaysaa gurina meesha lagama dhaqdo xoolana lagama dhaqdo
fursad ugu fiican oo sharaftii karaamada leh waa qofka inuu aqoon yeesho intuu yaryahay intaas uga baxaya inaan kusii dheeraana ma rabo kulamo saan oo kale isugu imaanaynaa waxay u furantaha hadda idinka idiin furantaha qofkii raba inuu nala hadlo yar dhalinyaro inuu tegey ma aqaan oo gacanta u taagnayd haddii uu tegeyna ma aqaan soo dhawaada intiina kale wixii talaa calaykum asalaam amaamo aad baad mahadsan tahay adiga iyo daadiyayaashii barnaamijka waqti damaan kusoo biiray oo slideski markii la sharaxayay researchkii la sharaxayay baan kusoo biiray marka kolley waxaan filayaa inaad recording samaysan aan youtube ka heli doono haddaan khaldanayn waa recording ilaa hadda ha maama su-aal yar baan rabaa inaan weydiiyo adiga iyo bahda kale oo meesha ku jira ani uganda joogaa digriga iyo master baa ka qaatay digrigaygana wuxuu ahaa english buu ahaa mastertidin english ba ahayd passport soomaali ma haysto waxaan haystaa midkan un-ka oo dadka qaxootiga la siiyo oo loogu talagalay marka waa passport dowladda uganda bixisa laakiin waa travel document weye oo waxaa loogu talagalay dadkan qaxootiga in la siiyo safraan koley scholarshipyo oo qaxootiga la siiyo hadda midii mastercard foundationka ugu dambeysay oo jaacadda cambridge baan blegareeyey waa koley hadda bendi baan ku jiraa kuwo kale oo scholarshipyo loogu talagalay waa kol hore oo sanadkii lasoo dhaafay 2025 baan labaan xareeyey oo refugiga loogu talagalay midna Ireland bay ahayd midna waxay ahayd UK bay labada reject baa laysoo diray koley somehow hadda waxaa moodaa speedkii iyo markii moogtahay laba reject lagu siiyo ama saddex lagu siiyo speedkii iyo rabitaankii waa disappointment waa ka qaadaysaa ma garat marka ma waxaan inaan ku weydiiyo fursado oo qaxootiga loogu talagalay ma jiraa sidoo kale haddii aan iladkii aan haysan ilad ma haysto aniga laakiin warqad waxay tahay warqadan oo inaad wax u baratay englishka aan heli karaa digrigaygina mastertan wuxuu ahaa english buu ahaa marka maama iladna ma diyaarin passport somali lama haysto bal qof noocaasa ka waran saga kiiskiisa maxamed waa iga dambeynaa baasaboorka qaxootiga dhibaato malaha priority aba la siiyaa ilaa xataa ingiriiskan waa ku imaan kartaa ugandana jaamacado badan oo ay ku jirtaa arkay oo badanaa laga reeba soomaaliya etoobiya iyo jabuuti aad horta waa la garab bixeeyaa oo meelo badan kula jiraan laakiin uganda number 1 waaye jaamacado badan ay ku jirtaa baasaboorkaas uma maleynaya inay caqalad kuu keenayo hana ka niyad jabin because yar maalin dhaweyd annaga livekan noogu imaan jiray oo xamse xariiri la yidhaahdo oo fully funded master ka helay Spain isagana 12 rejectia la si kii 13 aan ku baxay marka insha Allah dadaal waxa laga rabaa 5 ilaa 10 sida la sheego researchigi ay approximately dadkan gaalada waxbay wax ka bartaan waxbay qoraan timeline la sameeyaa 5 ilaa 10 ina 3 bilood gudahooda xareysa laga rabaa 5 ilaa 10 addition oo kala jaa ilaahay isku xir annagana waa ku duceynayna ilaahay ku aga soo fuday laakiin meel fiican ay joogtaa dad badan oo Soomaali jooga oo baasaboorada lagu diiday waxaas oo dhan fursad fiican ah haystaa wali priority la siiyaa dadka wadanka la qaxoonti ku arinta ayladka soo ka waran ayladka muhiim ah hadaa waan wax ku baratay oo jaamacadda ingiriiska ma laga rabo waay محمد عبد الرحمن أحمد آدم هدايا وإن بدن كحطوا التجنيد تودو aad u maasanta maama aadna waa kugu mahadcelinaya dhammaan dadaalka aad wado adiga iyo tiimkaaguba iyo akhyaarta kale runtii dadaal wacan iyo garab istaag ay dhalinyarta u wadaan man laa yashkuri innaas laa yashkuri illaah aadna anigu mahadcelinaynaa intaa iyo in ka badan inaa noo sii qabataan aniga hal su-aal oo kooban baan wata maama waxa weeyaan hadda tusaale ahaan waa just su-aal kooban waaye hadda wadamadan reer Yurub oo kale ama wadamadan kale wadankan ani ahaan shakhsiyan nafteedaan hadlaya aad oran kartaa wadankaas oo waxbarashadiisu fiican tahay qofku mustaqbal fiicanna kasii gaari karaa oo shaqooyin iyo meelo kale hore ugu sii mari karaa tala ahaan su-aasheedu waa somehow tala ahaan weeyaan bachelor master master degree raadinay masduk sira ka soo baxday
aniga degree double degree baan والله wadamada habariga kulli horta wadamada westernka dad shaqaysta waa dhulkooda waa isku wada mid Jarmalka hadii la yiraahdo Spain Netherland kulli way fiican yihiin meel walba yani fursadii shaqada adigoo arday ah shaqo waa ka helaysaa laakiin shaqooyinka Afrika yaalo kale oo qofka sidoo intuu xirta xafiis la fariisana dhulkan ma yaalaan hadaa graduate tahay xataa hadaa nasiib leedahay waxay helaysaa shaqo xafiis ah kursi ku fariisanaysa inta kalena waa taagnaan ama gaari la wadaayo ama wax sababta Yurub waa iska adag tahay nolosheeda shilinka heshidna kiradaada hadda approximately Yurub qofka ugu mishaarka badan 3,000 qaata ama 3,000 euro ha noqoto ama 3,000 pound ama 3,000 dollar ha noqoto saddexdaas kun guryaha roughly guriga degantahay wuxuu yahay reedkiis 1,200 ilaa 1,300 guryaha dadka qaar 2,000 guryaha luxury oo xoogaa villa Soomaaliya la dhigi karo marka salary scale qorsheynta qaranka waxa la dhaha jiray idinku ay yiritiin Soomaaliya waxay lahayn jirtay wax qorsheynta qaranka leedahay wasaaradda qorsheynta qaranka waxay dejisaa wadan walba mishaaraadka iyo nolosha ay isu dheeli tirtaa marka reedka mishaarka 3,000 ilaa 5,000 wadankan Soomaaliya yani wadan walba waa la dejiyaa qofka intaas ka badan ma suubin karo marka 3,000 anaga aan suubino wallahi billahi talaa bishi 5 casho ma nala dhaafo koronto gaas muxuu ahaa kiradii bariiskii yani xayaato laguma noqon qof dadkan oo hadda wax ka qabsada meelaha lacag ay waxa waa fraudkan ku keeneen ama wax ay afkooda ka qabteen waa laga gaajoodaa lacagta Afrika loo soo diray marka haddii aad horumar rabtid oo aad double master wadataa shaqo fiican in dhalinyaro tahay meel walba shaqo waa ka soo dirtaa Yurub oo dhan waa isku wada mid qofka bini'aadamka shakhsiyadiisa ku xiran tahay hadba sidoo meel walba u joogo oo asaga commitment u leeyahay oo lacagtiisa u kala save garaysto oo wixiisa u kala dhaqaalaysto oo hard worker u yahay wadankan dad Hindiya nala joogo dadka Hindida nimankooda naagood isma furan sida Soomaaliyeed horta badanaa naagood ma shaqeeyaan lacagta carruurta haysanay ninkaas subax salaadii u kacaa 5 sano ama 3 sano wuxuu leeyahay adoo 5 sano camal oo wuxuu samaysanaa gool ayaad qalbi ku noolaanay 5 sano laakiin 5 sano ka bacdi qofka madowga ah wadanka Nigeria Uganda nala joogo Pakistan Hindiya nala joogo inta waa naga fiican 5 sano qofkaas meel u gaara guri gadanaya baabuur villa oo la cruiser gurigiisa u yaalo meel heersan u gaaraya yani subaxdii shaqo galaan hadda fiid markay rag Soomaali shaqada 5 galabnimo ka yimaadaan ayaga uu casheynaya ilaa 6 la qadiyaa wadanka isla markii mooto qaadana ama baaskiil ka bilaaba baaskiil wuxuu ku shaqeeyaa delivery ilaa 12 habeenimo wuxuu taagnaana wuxuu ku shaqeynaa $1 ama $3 ku shaqeynaa oo baaskiilkooda beets u geynaa jikinka u geynaa kan u geynaa 6 saac nin madow meel ma fadhiyo 6 saac maana waa seexdaan sigisi haddana kacan ayaga dhan 6 saac ay seexdaan laakiin 5 sano meel u gaara qofka Soomaaliga ma rabo meel ugu gumaysanaa inuu baaskiil wado $2 maxay ku dhaca hindi $2 uu save gareeyaa annagoo taagan oo Soomaaliya korkeena guriga ku gata marka qof walba wuxuu ku xiran tahay bulshadeeda iyo sidoo hadba isu dajiyo oo guurka xitaa u adkaysano dadka ayagoo raalli iska ahayn is haystaan gaali isla iyo ummadda kale oo dhan because wada jirkaas lagu noolyahay Soomaalida tafaraaruqa ilaahay u keenay guriyada dhaxta laaba tafaraaruqa oo qoyskii ama iskaashanayeen marka ilaahay khayr ha keeno annagana ilaahay ummadeena nala hagaajiyo hadii ilaahay yiraahdo yaa kale qabo war helo aniga qabo salaamullaahi calaykum dhammaantiin waan islaamay magacaygu cabdiraxmaan cali la yiraahdaa anigana haweer waan dhowahay barasho wanaagsan magacayga cabdiraxmaan cali la yiraahdaa nin dhalinyaro waxaan ahay high school soo dhameeyey marka waxaan hamuun fara badan oon u qabay inaan helo waxbarasho laakiin jaamacadeed laakiin way ii saamaxaysay nin dhalinyaro oo had soo kacaan ahay laba shahaado dugsi saraan haystaa Kenyana dugsi saraan ka haysta oo point grade muhiim baan ka keenay Soomaalina laftigeeda grade muhiim baan ka qabaa marka waxaan raadinayay deeqa waxbarasho nin haddaan awoodi waaye qasab ma inaan meel iska fariisto waa inaan si walba aan u heli kara knowledge mise aqoon igu filan intaan heli kara inaan raadiyo marka waxaan doonayaa inaad xog fiican aad iga siisid
nin hadda bilaaw ah nin dhalinyaro hadda bilaaw ah oo habeen walba ku fikiro inuu meel gaari karo wax bedeli karo ayaan ahay marka inaad hal iyo laba talo inaad iigu siisid ayaan doonayaa Soomaali ma joogtaan mise hadda Kenya ku sugan tahay hadda soomaaliyaan ku suganahay hadda la joogo baasaboorkaaga muxuu yahay baasboor Kenya ayaa xareysan moogaa hadda baasboor Soomaali ma haystay dhowr bilood ka horan baasboor Kenya xareystay baasaboorka Kenyaatiga haddaa heshid way kuu fududahay Kenya waxbarashada dugsi sare haddaa kusoo dhammaysay curriculumka Kenya ee haysta waxaa lagu geeyaa dalka Ingiriiska jaamacadaha Ingiriiska deeqaha waxbarasho ay bixiyaan IELTS xitaa laguguma xiraan ilmaha Soomaaliya jooga oo dhan ilaa iyo geeska gees waa ka fursad badan tahay luuqadda Ingiriiskana waxbaa ku barataana u malaynaa haddii aad ku fiican tahay oo dugsi sare aad kusoo dhigatay dugsi hoose Kenya fursad fiican aad haystaa applicationada buuxso hana yani ka caajisin dokumentiyadaada inta muhanad idin soo sharxana diyaarso gruubkana waa ku jirtaa ayaa u malaynaa warbixinta oo dhan gruubka taallaa okay adigana research waa soo dirtaa youtube-yada inta baa daawan kartaa okay maama waa mahadsantahay habar waad mahadsantahay thank you adaan badan habareer waa ku dheeraana u malaynaa waa soo xiraynaa yaa kaloo hadal kaloo muhiim ahaayo hadduu qof kale jirin waxaa u malaynaa dhalinyaraa dhehaysa haddaa markuu muhanad wax sharxaye waxaa aad u adag bajulaarka ee ka hadal bajulaarka ma adka masterka iyo bajulaarka waa isku mid application waa isku mid intuu idiin sheegayo lee ku taala bajulaarkana bajulaarka wuxuu dhalinyarada ula adag yahay waa cusub tahay fresh markaa tahay halkan jaamacadaha waxaa laga dhaha qofkan fresh waay freshiga mar walba waxay u baahan yihiin dhiirigelin dugsi sare ka soo baxay jaamacadyaa ku cusub xataa moral support u baahan yahay cunugeyga xataa aniga marka cunug walba jaamacadda ku galayay yani jaamacadaha xataa waa laga yaqaanaa dugsiga marka kan labaad iyo ka saddexaad iyo sanadka labaad sanad saddexaad ardayda kale ku jiraan ardayda freshiga mar walba tabaray u baahan yihiin kalsooniga u baahan yihiin idinkana waa taasaa maraysiin marka gaaladu waxay dhahaan enjoy the process ku raaxaysa processka waxba lagama bedeli karo inaa cusub tahay inay wixii shook bu yihiin inay kula adag yihiin waxaasaytan waa waxaan u sameynay gruubka oo hadda dhalinyarada ugu firfircoon tabaruc noo suubiyeen oo gruubka aan ka dhex bixinay anigii muhanad maadaama waqtigeenu adag yahay dhalinyara aan ka codsanay foomka sida loo buuxiyo yaqaano oo ardayda niyad jabaysa dugsiyada sare ka soo baxay oo ku cusubtaa bajularka sida loo xareysta caawinayso haddaa gruubkaas u baahantahay soo dalbo coaching group aa lahaa scholarship coach groups aa lahaa isla gruubkan ka dhex furna maanta la furay haddaa markaa indhi xiran tahay aniga waa ila soo hadli kartaa muhanadaa la hadli kartaa group coachkaasaa gelaysaa qof kasta oo walaalkaa group kula jirina waa qoyskaaga hal danaan ku heshiinay waxaanaa hooyo ubadkeedaana iyo dad wada dhashay danteenaasaan wada gaarayna marka cunug fresh haddaa tahay processkaas iyo cabsidaas iyo naxdintaas iyo aqoon daradaas waa adi keligaa ma ah kan america ku nool xataa saas leewaay laakiin waa ka baxay wax kaloo muhiim la sheegayn waa isu duceynaynaa qof walba muraadkiisana allah u sahlo ubad hore anaa ku darsanaya wada ballaqo qof walbana rajadiisa ku dar habar shaafici waxaan ku darayaa waa maasanta horta hore marka koowaad midda labaad hal mid oo talaabaan ku darsanayaa oo ah mataqaanaa in naloo soo gudbiyo jaamacadaha maaragtay ileedka aan nagu xireen oo haddana midda labaad ay tahay naga rabin application feega naga rabin oo application maaragtay wax lacag aan dad ku xireen inaa kuwa noo soo gudbisaanna waa jecelnaa insha allah insha allah application feega muhanadna waa idiin sheegay anigana waraaq sambalan soo qoray ma aqaan waa raadinaya waa kusoo celinaya because ardayda waa kala dambeeyeen dad badan oo danahooda raacinayo noloshooda ku mashquulsanna waa jiraan waa fahmi karaa in maalin kasta qof uusan gruubka dhex taagnaynan oo nolol la ciirsanayo waxaa jira warqad sambal ah oo aad haddii application fee jaamacadda leedahay xataa aad ku codsan karto youtube-kana hadda ka horaan soo dhigay inay muxuu ahaa eegtaan eligibility-ga oo ay leedahay merit wax la yidhaahdo oo naxariis ah iyo muxuu ahaa shuruudo badan ay leedahay garab istaag exceptional case hadduu qofka xataa naafanimo qabo
hadduu long term illnesses qabo xanuunada oo dad kale ay la nool yihiin waxaasito dhan naxariisaa loo suubiyaa marka koobigaasaa qaadaysaa emailaa ku diray student supporta u diraysaa dalkana mar walbo dal adduunyada waa laga yaqaana dalkeena waa burbursanaa 30 sano dowlad ma lahayn waxbarashada waxay gacanta u gashay ganacsatay u gashay waalidkii employment ma haysto suuqada bariiska ku gada ama dhismayaal ay kasoo shaqeeyaan waxaasito dhan aad qoranaysaa tartiibtaada jaamacadda heshidaa u dirsanaysaa waxaa leedahay liga wayfral dhaa fee wayfral dhaha hadda kor waxaa soo sheergareeyey inaydan ku xararin fiigaas maana la soo sheergareeyey anigana warqadeeda sanbalaso teeda kale mar walbaba shuruudaha isku hayso xaaladihiina waa qoran kartaa waa mahadsan tahay wax yaraa rabay aan ilaawa inaan ku daro pointigaas oo ahaa marka wax yaraa rabaa inaan nala sheer gareeyo emailkas yar hadda ka hor waa lasoo sheer gareeyey sample haddana mid sample aa tusaaya soo maadaama waxaan xoog saarayno practical inta waa aragtaan soo maaha waa loo jeeda ها عادي وينو جينا muhiimadda emailkan waxa waaye xoogaa pointigaas xoogaa dadka qaar waa hoos maraa waana caqabad waa hadaan hadda fahmin sababtoo ah waxa jira scholarship aan hadda ka hor soo shaacinay oo maam yasmiin inala soo wadaagtay GSK scholarship la dhaho scholarshibyada kale sidoo kale waa jiraan iyagana markasta qaar waxa arkaysa separate application waxa waaye marka hore waxa laga rabaa inaan must ah inaan soo xareyso master program sorry waxaan ka wadaa programka inaan soo xareyso so programka hadaan soo xareynin ma xareyn kartid scholarship oo qaar hadda waxay ku sheegayaan kuwan camal hadda inaan linkiga markaas iyaga kula soo wadaagaan marka admissionka gaar u xareyso marka hadda ka hor I think waa qoraalkana waa nala soo wadaagaa meeshaan waa sample waaye so waa xaqiiqa waaye marka waa aragtaan waa fee waiver request waa applicationkan ay soo aqbaleen waaye so badanaa marka waxa fiirinaya maadaama aad codsan karin scholarshipkii marka hore waa inaan aad soo buuxisaa shuruudan haddaan soo buuxin scholarshipkii ma applicant ma noqon kartid marka waxa u baahanahay inaad dhahdo aniga waxa u baahanahay inaan codsado scholarshipkaas saas sidoo kale riisana dadka ay ku siiyaan waa jirtaan oo qolyaha qaar waxay sheegaan website-kooda waxay ku sheegaan qofka xaq u leh application fee waiver marka haddii arki weydo ama aa aragto tusaale hadda kun waxa ahayn content bound ahayn I think ina ahayn marka waa la hadle qolyaha admissionka u dire emailka kadibna wuxuu kusoo siinayaan linkiga markaas application fee waiver request ah jaamacadaan lahayn ma jirto jaamacad kasta waa leedahay waa la wadaag kadibna application ay kusoo siinayaan document la buuxinayo ka hor intaadan buuxin marka waxa fiirsaa yaa u qalma application fee waiver qoraal ah badanaa jira ay shaaciyaan oo introduction kaga hadlayaan marka qoraalkaada iyo qoraalkan isku salay u sheeg inaad scholarshipka codsanayso haddii aadan admissionka soo buuxinna scholarshipkaas aadan fursad u heleynin marka sida waxa dadka hadda qaar isheeg refugee haddaa haysto haddaa meel security wadanka dhexdiisa meel insecurity kaga soo carartay meel kale aad tagtay haddii yacni shaqo la'aan aad tahay adi riisana badanaa jira marka daliilo adiga markastana waa nii sheegay tibkaas waan siinaa isku apply garee so waxaan ay rabaan adiga waxa qorayso waxay iswaafaqaan kadibna waa helay insha allah marka codso marka codsatan waa laga soo dhaafaa kadibna waxay ku siinayaan linkiga portalka toos oo codsane marka applicationka scholarshipkana markaas toos u sii wadane jaamacadaha kale admissionka iyagana caadiga loo xareeyana programkaada hadduu ku jirin oo isheeg taas aad weeday taas waa kiis gooni waaye laakiin badanaa waa hele so dhowr jaamacado soo xulo laba adiga 10 meelahaas xooga waxaa saarta kuwa application fee waiverka lahayn fiiri jaamacado badan ma laha kadib marka kuwaas codso waa aragtaa warqadda idinla sheergaray waxaa ku qornaa in loo ogolaado in laga afiyo fiigii jaamacadda indhihiina shanta waa ujeediin the possibility are endless wax walba suurtagal waa niyadda dhista horena u socda
teeda kale waxaan rabaa inaan idin weydiiyo oo aan mar walba isweydiiya aniga la yaabaa suurtagal ma taha website kasta in af soomaali laga dhigto muhammad halkaas su-aal bal iiga jawaab haa hooy waa laga dhigan karaa website kasta af soomaali lagama dhigi karo google-ka soma website marka af soomaali haddii laga dhigan karo wax excuse ma haysatid dulqaad la-aan bas aadin hayso hadda af soomaali ilaa hadda laga dhigan karo eligibilitygaas aqrin war journaal waa adoo iska akhrisanaysa intaa meelaha fadhisidaa iskaga baashaale hal saac lee kugu filan maalinta inaad gelisid beriya haddana usoo noqonay application xataa wongoma la buuxiyo maanta buuxinay safe aa dhehe beriya usoo noqonay waa soo baashaale balooniga soo cayaar waxaaga soo samey gabdhahana si gaara ula hadlayaa gabdhaha badanaa kiin iyo waxaan ujeedaa shukri maxamed inta kale iima muuqdaan gabdhaha naftirkooda waxa waaye meridka markaa recommendationka qoranaysiin in gabdhaha equal opportunity ay wiilasha la helin oo dadka dhaqaalihii ku yar yahay oo gabadha ay hooyada caawiso hooyadana ay u shaqo tagta reerka oo qoyska aabbaha iyo hooyaha shaqaynayo oo kale aysan lacagta ku filnayn ay ciddaas ku quudin karaan marka badanaa gabdhaha la yidhaahdo excuse ka dhiganaysiin yacni dalkeena iyo diinteena cayma la dhahay laakiin waxaad dhehaysiin maadaama reerkeena uu dhaqaale yar yahay aabbahay hooyadayga waa shaqo tagaan aniga markaa fursad ma heli karo intaasoo carruuroo siblina iga yaryar haddaad doonto baadiyey reerkeena degan yahay aniga magaalada habaryarta ugu imaada ama eedada ugu imaaday haddii aabbahay hooyadaa dhinteen meridkaasay dhanaa ku qoran kartaa in shaqooyinka gabdhaha iyo ragga u sinayn in waxbarashada aysan reeraha ee qoyska priority siiyaan wiilasha oo gabdhaha la yidhaha guryaha ka shaqeeya beritaa lagu guursana waxaasayto dhan waa sheegi kartaa adoo cidna caynin hadi sheeko yaraa iska samaysana qof walba si gooni u suubsana oo xaaladiis ku khusaysa xaaladaada ilaa xawaaji kusii dardaraysaa marka waxaasayt samaysta insha allah garabkan waa idinka taagan idinkana waa iswada garab taagan intaasaan uga bixinaa 2 saac camal aan ku jirnaa shirka wax kaloo muhiim haddaydan hayn waa soo gabagabaynaynaa qof kaloo wax ku daraa maa jira documentyadan waa lidin soo wadaaga maanta presentationkuu sameeyey iyo kaa aniga hayo marka waa kaas intaasaan uga bixinaa haye waa soo xirayaa muhammad waa mahadsantahay hooyo dhammaantiin asxaabta nagala soo qayb gashay aada mahadsantiin idinkana waqtigiina quruxda badan wax kasta waa macquul waana samayn kartaa laakiin dadaal le kaa xiga haddaanan dadaalin oo waxaad hiigsanaysa uuna caddayn meel ma gaari karto